kulanti kale mar kale magacaygu waa Cabdilatiif Xirsi waxaynu maanta ka hadlaynaa ciwaan runtii xasaasiya oo ilaa iyo dhowr qaybood ka kooban waxaan aaminsanahay ciwaankan maanta aan ka hadlaynaa inuu yahay mid ka mid ah waxyaabaha xogtooda loogu baahida badan yahay in la helo sababta sidaas aan u leeyahana wax kale ma ahane waxaan aaminsanahay arrinkan aan ka hadli doona hadduu Ilaahay yiraahdo inuu yahay mid ka mid ah cadawiyada ugu waaweyn ee qofka bini aadamkaahi ka haysta inuu horumar sameeyo inuu kor u kaco inuu isbedel sameeyo inuu wax cusub isku soo kordhiyo sidoo kalena waa caado qofka bini aadamkaahi hadduu joogteeyo ama uu la qabsado ama uu develop gareeyo wax badan oo noloshiisa aan u suuro gelinayn inuu wax qabsado so marka ciwaankaasi aan ka hadlaynay maanta wuxuu yahay just waxa loo yaqaano procrastinationka ama wahsida ama dib u dhigashada waxa loo yaqaano marka waxaan sameynaynaa overview guud baan ka bixin doonaa dib u dhigashada iyo wahsidu waxa ay tahay kadibna waxaan ka sheekayn doonaa hadduu allaydno xeeladaha iyo farsamooyinka qofka bini aadamka ay u fududayn kara ama u sahli kara inuu arrintaa iyadaa ka guulaysta ama uu ka adkaado ama bataatanba uu maareeyo so haddaynu ku bilaawno marka qaybta koowaad procrastination ama wahsi si kooban waxaa la yidhahdaa qofku hawl u taallo oo laga sugaaya inuu dib u dhigtaa waxaa la yidhahdaa wahsi horta intaasaa la yidhahdaa si kooban marka la fiiriyo marka ereygaasaan soo qaadanay dib u dhigasho meelaha qaar waa caadi qofku hawl inuu dib u dhigtaa that's normal sababtoo ah saaki markaad gurigaaga ka baxayso laazim waxaad wadataa agenda wadataa maalinkaas aad rabtid inaad qabato ama inaad hawl geliso ama inaad fuliso si kooban marka ajendahaas aad wadatid ee ka kooban ilaa dhowr ka shay waxaa laga yaabaa maalinkaas qaybo ka mid ah inaanu kuu suuro gelin marka waa caadi maalinka xiga inaad ku darsato ajendahaaga ama tusaale adoo hawl leh baa waxaa soo booday hawshii mid ka daran baa soo booday waa caadi markaa qaar meelaha qaar tan inta joojisid taa kale inaad qabatid taa waa caadi laakiin mushkiladdu waxay tahay qofku markii waxaanay caado u noqdaan oo wax badan oo uu qabsan lahaana noloshiisa ay ka hor istaagaan mushkiladda ugu weyn horta waa taa so su-aal baa marka meesha imaanayso ah horta why do people procrastinate horta maxaa keena horta dadku inay wahsadaan ama inay inta badan caadadan dib u dhigashada inay kobciyaan oo ay la yimaadaan oo noloshooda inta badan ay qaabayso what causes this horta arrintan horta maxaa sababaya basically waxa markaa faantid inaad hadhowtii xalka raadiso ama inaad la dagaalantahayna aad bay u sahlan tahay laakiin waxaadan ogeyn waxa sababa iyo waxa keena iyo say ku dhashaan it's so hard inaad la dagaalantahay aad bay u adag tahay this markay timaado maxaa keena dadku inay wahsadaan ama maxaa keena caadadaas dib u dhigashada dadku inay develop gareeyaan ama ay kobciyaan waxaa jirta qayb ka mida maskaxda bini aadamka oo inta badanba qofka la jecel waxyaabaha uu qofku ku dareemayo raaxada iyo deganaanshaha iyo raynraynta uu ku dareemayo laakiin wax weyn aan qofka mustaqbalkiisa kusoo biirinayn qaybtaas ayaa marka inta badan qofka bini aadamka ah waxay ku dhiirigelisaa inuu shaqooyinka u yaalla ee tusaale xoogaa naftu ay dhibsanaysee naftu ay kahanayso lagana rabo qofka mustaqbalkiisana muhiimka u ah inay ku dhiirigelisa inuu iska joogo oo xoogaa is yidhaahdo tomorrow baad qabanaysaa sug hadda naso xaaladii saxnayd ee shaqadan aad ku qaban lahayd kuma jirtide bal sugo markii aad isku toostaad shaqada qabanaysaa nafis horta dareeno bal jawi degan qaado markaas kadib baad hawshan qabanaysaa marka waxyaabahaasay marka qaybta maskaxda ka mid ee loo yaqaano rational partigu ay qofka bini aadamka horta u meerinaysaa oo horta ay ku akhrinaysaa this waxaana markay noqdaan marka overtime oo qofku tusaale muddo then wixii qofku waxay u noqonayaan caado ama dhaqan bay qofka u noqonayaan wuxuu mar hadday caado ama dhaqan qofka u noqdaan dee waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka noloshiisa guide gareeya oo hoggaanka u qabta ayay ka mid tahay this marka qaybtaas aan sheegay ka mid a maskaxda bini aadamka ee inta badan qofka aan la jeclayn
waxyaabaha caqabada ku dhisan waxyaabaha adag waxyaabaha aan ku dhisnayn ee iyadu rabta kaliya waxa naftu ay ku dareemaysa deganaanshaha iyo raaxada iyo reynreynta qaybtaasa horta mas-uul ka ah inay inta badan dadku caadadan iyada ahee wahsida ama dib u dhigashada ay develop gareeyaan ama just waxa waaye ay kobciyaan marka haddaad marka qaybtaas u ogolaato noloshaada inay hagto dee wax badan oo waxaad qabsan lahayd wax badan oo waxaad yacni qaban lahayda waxaad ogolaanaysaa inay dib u dhacaan baad ogolaanaysaa ceeb ka weynna ma jirto meelaha qaar markaad noloshaada dib u fiiriso 3 sano ka hor waxaad rabtay inaad qabato ama 5 sano ka hor waxaad rabtay inaad qabato weli inay kaa hor muuqdaan adoon qaban ceeb ka weyn may jirto waa waxaad intaasoo sano ka hor naftaada aad u ballan qaaday intaasoo sano ka hor noloshaada aad u ballan qaaday inaad qabanayso inaad samaynayso inaad ka takhallusayso still markaad fiirisid hortaaday ka muuqda tusaale 3 sano ka horba waxaad soo iibsata buuggaas markaad soo iibsanayso wuxuu qorshahaagu ahaa toddobaadka u horreeyaba inaad ku akhriso maadan akhrin meel baad dhigatay markaaba waxaa isku meerisay tomorrow baad qaban next week baad akhrin next month baad just waxa waa akhrin aye 3 sano kadibna wuxuu kuu saaraya iska faalla adoon weli jabtarka u horreeya xitaa aanu akhrin marka waxa laga yaabaa waxaas haddaad joogtayso oo aad la qabsato noloshaadoo dhanba inay noqoto just yacni shaqooyin aad ku haminayso oo isdul saaran oo midba midda kale waxa waaye ay ka tirab marka it's so shame anaa qaarkood wax naftaada aad u ballan qaaday anaa qaarkood waxaad qorshaysay oo aad rabtay inaad fuliso laakiin aadan ku dhaqaaqin it's so shame this arrinka ku saabsan procrastinationka kolli waan sheegay oo qaybta xalka iyo farsamooyinka iyo xeeladaha la isticmaalayo waxaan kusoo gudbinayaa muuqaalo kale aan kusoo gudbin doonaa hadduu ilaahay yidhahdo laakiin waxaani horta sidee u shaqeeyaan horta si kooban waa anigii haddaayatay sheegay oo waxaan horta waxaa ka mas-uula qayb qofka bini aadamka ah maskaxdiisa ka mid baa ka mas-uula laakiin waa emotion waxaan qofka bini aadamka uu develop garaynayo oo uu hormarinayo oo uu kobcinayo emotionka markaa tusaale ahaan markii shaqo aad ka wahsato eeg halkaa shaqo markaad ka wahsato ama dib aad u dhigato horta waxaad dareemaysaa xoogaa waxaad ka shakinaysaa kartidaadaa ka shakinaysaa kalsooni daraa imaanayso adigii unbaad xoogaa waxaad dareemaysaa inaadan hawlkar inaadan ahayn baad dareemaysaa wixii markaa say u socdaan aakhirka markaa waxay isku beddelaan waxa loo yaqaana chronic procrastination waana meelaha ugu halista badan oo qofka haddii xaaladiisa wahsida ama dib u dhigashadu ay gaarto ay adag tahay qofka inuu kasoo kabsado noocay rabta ha noqoto horta waa laga soo kabsan karaa laakiin wuxu mar hadday noqdaan chronic procrastination hadday noqdaan xoogaa waa yaro adag tahay processka qofka uu kusoo laaban karo inuu waxawaa horta waa yaro adag tahay marka waxay ka mid tahay procrastinationku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha qofka bini aadamkaa ka hor istaagi kara horumarka ka hor istaagi kara kobaca ka hor istaagi kara inuu halka uu shalay joogay inuu meel ka sarraysa inuu tago ka hor istaagi kara inuu asaagii la jaan qaado nolosha darafkiisa uu ka qabsadoo socdo